Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo wafdigan ballaaran oo uu hogaaminayay ayaa waxa gagada diyuuradaha aadan cadda airport ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan labada gole ee dawladda, diblomaasiyiin iyo saraakiil ciidan. Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo maalmihii la soo dhaafay safar shaqo u jiray wadamada Ethiopia iyo Djibouti oo kamid ah wadamada ciidamada nabad ilaalintu ay ka joogaan Soomaaliya ayaa intii uu halkaasi ku sugnaa kulamo la soo qaatay madaxda iyo mas'uuliyiinta kale ee wadamadaasi dariska la ah Soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Dr. Cabdisalaan Cumar Hadliye oo qayb ka ahaa wafdiga ra'iisul wasaaraha ayaa ka warbixiyay safarkii ra'iisul wasaaruhu ku tagay wadamada Ethiopia iyo Djibouti iyo waxyaabihii madaxda wadamadaasi ay ka soo wada hadleen. waxaan rabaa inaan waridi ka siiyo safarkii Prime Minister ku wafdigii uu waday ee ku tagay wadamada Nigeria, particularly Ethiopia iyo Djibouti. sidaad ka warqabtaan waa laba wadan oo dariskeena walaalaheena cilaaqaad fiican aan leenahay amisoomna ku jira. waxaan ka wada hadalnay sidii iskaashiga loo xoojin lahaa, sidii wax loo sii wada qabsan lahaa xagga dhaqaalaha, xagga siyaasadda, xagga culture-ka oo la isweydaarsado dhaqanka. waxaan qabaa inay ahayd wax aad loogu soo guuleystay. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Dr. Cabdisalaan Cumar Hadliye ayaa sheegay intii ay socdeen kulamadii ra'iisul wasaaraha iyo mas'uuliyiintii wadamadaasi in ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ah ee Geeska Afrika. waa la isku soo qaaday waxaana lagu tashaday in dhinac looga soo wada jeedsado sida imikaba dhinac looga soo wada jeedo. waxa lagu tashaday in strategy la wada yeesho, in lala dagaalamo argagixisado dhan, in amisom ay qaybta ay ka wado ka sii wado ilaa 2017 marka mandate-koodu uu dhamaado, iyo sidii mataqaanaa loo dhisi lahaana waa laga wada hadlay ciidamada. Sugaal Macalin Maxamuud, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, magaalada Muqdisho.